inaan daah furno agab loogu talagalay in ay bulshadu ay qayb wacyigelinta ka hortagga COVID-19 ay u ahaato agabkaas oo ay tahay inay dadku ku farxashadaan maadaama maanta hadda aanan lahayn tallaal rasmiya oo xanuunka lagaga hortago ay keliya tahay in la isku raacay inay dadku farxashadaan kadibna qofku markuu farxashado inuu haddana hadhowdii afka uu ku xirto waxyaalihii markaas protectionka ahaa ay u baahnaan lahaa agabkan wuxuu ka kooban yahay haan 160 litir ah oo biyuhu korka ay uga dhacayaan oo shirkadda Nuwako ay tiri biyaha si free aan u bixinaya iyo 2 fuusto oo biyaha farxalku ay ku dhacayaan oo 400 litir ah oo hadhowdii markii meeshaasi biyahaasi ay buuxsamaan shirkadda Daryeel Deegaan ay ballan qaaday inay biyaha nadaafadeeda iyo wasakhadeeda ay qaato agabkaani qofku gacantiisa ku taaban mayo cagta ayuu biyahana ku furanayaa cagta ayuu biyaha shaambadana sidoo kale gacanta ugu dhiganayaa kadibna qofku gacantiisu qalashanayaa kadib markuu qalajiyana agabkii uu markaa gacanta ku qalajiyana meeshii loogu talagalay wasakhda ayuu ku gurayaa barnaamijkan waxa fikraddeeda iska lahaa isxilqaamayaal runtii isu tegay u arkay in baahidaani ay jidho ayna u baahan tahay in si degdega bulshadii loo gaarsiiyo loogu baahiyo aana rajaynayna insha Allah in degmooyinka iyo meelaha kale sidaan iyo si lamida aan qayb fikraddii u gaarsiino isxilqaamayaasha waxa la yiraahdaa KCK ka hortagga cudurka corona baan u bixinay runtii waxna abaabulkeedii annaga iska lahayn oo qaaraanay waxna waxaan uga maarmi weynay shirkadihii markaa waddanka ka jiray inay qayb ka ahaadaan waxaan mahad ballaaran ilaahay ka sokay u soo jeedinaynaa shirkaddii Golis waxaan u soo jeedinaynaa Amal Bank oo isna qayb ka qaatay Daryeel Bank sidoo kale waa u mahad celinaynaa sidoo kale waxaan mahad ballaaran oo kale u jeedinaynaa Horyaal Jet oo iyadana qayb ka qaadatay shirkaduhu wili way tiro badan yihiin oo shirkado badan baa qayb ka qaatay Nuwako iyo sidoo kale Daryeel Deegaan iyaguna kambaniyadaas ahayn dawladda hoose waxay ahayd lafdhabarta shaqadan sidoo kale wasaaradda caafimaadkuna waxay ahayd garabka iyaga midig oo mar walba aan shaqada marjiciyada noo ahayd marka runtii guddiga igala shaqeynayo xaawa hadda ila joogto iyo sidoo kale tiimko ilaa 7-8 aan ku gaaranay waxaan rabaa insha Allah dadaalkii aan bixinay inuusan inta ku koobnaan doonin afkaarta waan sii wadaynaa haddana tan markii laga gudbo waxaan isleenahay wixii kale hadda baahiyo oo taagan oo bulshada xanuunkan COVID-19 oo aan qayb uga hortagi karaba inaan fikraddeena alifno kadibna aan bulshada soo gaarsiino media waa mahadsan yihiin jazakumullahu khayran assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh